بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة سلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan jecelahay in aan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto kuwa ifiirsanaya iyo wax ay fiirsan doonaba in aan salaamo oo ilaahdo waa salaamantihiin dhammaantiin. waxaan idin rajaynayaa masiibooyinka soconayana ilaahay inuu idinka badbaadiyo. magacayguna waa Isxaaq Nuur Xasan, waa gudoomiye ururka Dhaxalreeb. waxaana joogaa magaalada London carrada Ingiriiska. taariikhduna waa 7 bishii 6 2020. walaalayaal, waxaan jecelahay in aan ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dacwadii badda Soomaaliya ee Kenya ay ku haysatay. waxaa ka tagilaa ka timid aad iyo aad u naxdi badan ayaa ka timid. marka macluumaad badan oo aan soo ururiyay ayaa waxaan jecelahay ummadda inaan la wadaago macluumaadkaas. haddaba macluumaadkaasu waa kala qaybinayaa oo dheer qaybood baa ka dhigaya insha Allah. qaybta koobaad waxay tahay Kenya markasta waxay dalbataa dib u dhig. maxay Kenya dib u dhigaaso ay uga dan leedahay oo ay doonaysaa inay ka faa'iido? waa maxay qidada ku qarsoon dib u dhigaas? midka labaadna, qodobka labaad oo aan rabo berri inaan ka hadlanana waxa weeye waa dowladda Soomaaliya sidii loo baahnaay ma ka gashay dacwadda mise way dayacday ama way ugu dan leedahay? waa arrin weyn oo ayadu aad u dheerar badan leh oo aan rabo xoogaa saacada inaan u dheereeyo, laakiin midaan waa saacadeedu waa soo gaabinayaa. sababta aan u soo saacadaha u kala googooyana waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee baraha bulshada fiirsadaa waxay ku daaleen warar balaayo ah. marka uma dulqaadan karaan daqiiqado yar inay kula joogaan, markiiba way ka tegayaan. waayo oo waxay jecel yihiin qabiil iyo caay iyo balaayo iyo baas inay fiirsadaan ma ahane waxa qarannimada ah iyo wadaninimada ah iyo dalkooda iyo aayahooda u dan ah uma dhiga lahaa. ayaga isku jeeda oo iscaayaya oo hadalla aan wanaagsanayn hawada isku marinaya. marka bal waxaan leeyahay yeyse kugu daaline u soo gaagaabi. intaas ka bacdi hadda waxaan anigu iska sheego, anigu arrimaha badda aad baan ugu dhunduleelaa oo aan u raadiyaa. sababtuna waxay tahay waxaa ka mid ahaa jiray ciidamadii badda Soomaaliya oo weliba dalalkii dibadda ee Soomaaliya waqtiga kaalmey jiray ayaa waxbarasho u tegay oo ku soo qaatay. marka aad iyo aad ayaan u daneeyaa arrimaha badda. sidaas ayaan u soo ururiyey, adinkana waxaan doonayaa inaan inii soo gudbiyo. Kenya danteediiba markaa aan u soo laabanayaa. Kenya 2 danood ay leedahay ay doonaysaa. marka ugu horeysa waxay doonaysaa in dacwada laga soo celiyo maxkamadda oo dib loo soo celiyo. xaggay u maraysaa? maxkamaddu waa tiri dacwada waanu qaadaynaa lama celinayana waati maxkamaddu xukuntay. laakiin xaggay u maraysaa? waxay u maraysaa Kenya waxay doonaysaa ururka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaha loo dhan yahay General Assembly ee sanadkan soo socda September. markasta waxay kulmaan September ee kulmaan waa 193 dal ayaa kulmaya. markaas ay sharciyada qaarna baaskarayaan. marka waxay sameeyaan arrintaas ayay rabtaa inay geyso sanadkan. oo maxay ku geynaysaa? waxay ku geynaysaa oo la hoos gashay wadamo badan in la geeyo. waxay leedahay dacwooyinka ka yimaada wadamada marka ugu horeysa waa in loo daayaa labada wadan waa in loo daayaa oo lagu gacan siiyaa dhexdooda inay ka dhamaystaan. hadday ka dhamaysan waayaanna waa in lala aadaa ururada goboleedyada
ay ka tirsan yihiin waa in lala aadaa sida igad iyo afrika oo kaleeto sidaasoo kale inay la aadaan waaye markaas nimankaasa u dhammaynaya hadday u dhammayn waayaan si sharciyan ah waa in ay warqad ku soo lifaaqaan oo ay maxkamadda u soo gudbiyaan laakiin ayadoo ururada ka soo dhammaan ma ahan in maxkamadda ICJ International Court of Justice in loo gudbiyo ma ahan ay taasay rabaan inay sameeyaan oo ka dhaadhiciyaan golaha loo dhan yahay codna loo qaado waa la galagalaysteen wax badanna way ka sameeyeen waa loo diyaar intaas markay ay hesho waxay rabaan inay cod ku marmarsiiyaan codkaas golaha loo dhan yahay haddii la meel marsiiyanana waxaa loo gudbinayaa Security Councilka 15 wadan ee golaha ammaanka loo gudbinayaa ayaguna waa saxiixayaan markaasna waxay noqonaysaa sharci waxaana loo gudbinayaa garsoorka ayaa loo gudbinayaa garsoorka adduunyadu ururka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa hay'adda garsoorku waxa weeye waa ICJ ayada oo sharciyeysan golaha loo dhan yahay la soo marsiiyey Security Councilka ay soo saxiixeen ayaa waxaa la rabaa dacwadii oo taala in laga korgeeyo in la yiraahdo dacwadan ha loo celiyo dib ha loo celiyo ha lagu celiyo Afrika ha lagu celiyo sidaas waa qodobka koobaad waa kaas weeye sidaas ay doonayaan nasiib daro haddana Soomaaliya kuma laha cod kuma laha ama maba tegi kartaba waayo oo sharciga wuxuu dhigayaa 2 sano oo isku xigta member fiiga lacagta laga qaado ururka dawlad kasta lacag ay bixisaa marka lacagta member fiiga la yiraahdaa ee UN-ka 2 sano oo isku xiga dawladii bixi waysaa inaysan cod ku lahayn cod ma laha Soomaaliya 2 sano ka badan ma aysan bixin codna kuma laha hadday hadda bixi doonin haddana u malay maayo 2 sano lacagtii lagu lahaay inay miiska saarayaan shaki iga jira Kenya qidadeeda koobaad waa taas qidada labaad waa maxay waxaan ognahay maxkamadda adduunka waxa gudoomiye u ah ee la yiraahdo Cabdiqani Ahmed Yusuf ayaa gudoomiye u ah waxaa ninkan waxaa la doortay 6 bishii labaad waa February 6 bishii labaad 2018 ayaa waxaa loo doortay gudoomiyaha maxkamadda inuu noqdo ayaa loo doortay waxayna ka dhacaysaa 5 bisha labaad 2011 muddada maxkamadda la qabtana waxa weeye waa 15 bisha saddexaad waxaa u dhaxaysa 38 casho ayaa u dhaxaysa wuu soo geli karaa oo ku soo laaban karaa laakiin waxay u galagalaysanaysaa oo Kenya ay doonaysaa in aysan inuu dib u soo laaban ayay 15 wadan ee ku jira hadda jooga ay garsooryaalkooda ay fadhiyaan ayay la galagalaysanaysaa ninkaas inuu ku soo laaban ayay doonaysaa bal ogaada taas haddaan idin sheego 15 wadan ee hadda ku jira waa kuwe rajo lagama qabo oo fiican 15kaasu in ay Cabdiqani inay soo celiyaan oo Kenya ka hor yimaadaan anigu u malay maayo waayo garsoore kasta oo dhan wuxuu fulinayaa siyaasadda dawladdiisa ayuu ka dambeeyaa 15kaasu waxa weeye waa gudoomiyaha oo Soomaaliya ka yimid ku-xigeenka oo Chinese Slovakia waa wadanka la dhihi jiray Czechoslovakia oo burburay midka la dhihi jiray waa Slovakia la yiraahdo waaye caasimadeedu waa Bratislava waxa ku xiga Faransiiska Morocco Brazil America Talyaaniga Uganda Hindiya Jamaica Australia Russia Lebanon iyo Japan 15kaas wadan ayaa ah yay in la tahay in aan cod ka heli karno oo la dhihi karo ninkaasu mar labaad ha soo noqdo awal horeyto markii meesha uu qabanayay ninkan dacwadaanu sidaanu ma aysan online hadda arrintii waa arrin aad iyo aad xasaasi u ah
oo kenyana ay wadato ninkan inuusan soo noqon bal horta taasna ogaada waxaa marka waxay doonayaan ninkaasuna inuu meesha baneeyo ninkaasu cod gaara ma laha awood garana ma laha laakiin weliba markii go-aan kasta oo dhan waa loo codeeyaa oo maxkamaddu waa codeysaa 15ku ninka chairmanka ma ahane 14 kala a codeeya haddii 14 kala 7 ay noqdaan markaas uu cod leeyahay laakiin muxuu yahay wuxuu ka taagan yahay wax kasta ee maxkamadda yimaado oo qalad ah iyo qaab darro ah iyo wax alla wixii uu la dareen xun leh ayuu albaabka ka taagan yahay oo maxkamadda oo soo ogolayn marka galaangal iyo lablaabashadii iyo wixii wadamada waaweyn sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hadda waad ogtihiinoo dalkan waa dad meel taagan waa liko meel ka bax waa liko waxa la geed kalgi meel ka baxa la yiraahdo waa liko keeyse wax ahal iyo saaxiibo iyo wadal weyn marka wixii dadkii la dadaali lahaay oo la galangalaysan lahaay ninkana hor taagan waa lagu soo dhiiro waayay ninkana meesha fadhiya in wax galangalaysi ah oo lablaaba iloola yimaado waa suurageli weysay marka Kenya waxay doorteen ninkaasu bal horta meesha inuu ka wareego aragiisu meesha inuu ka wareego ayay doorteen waana ku guuleysteen sida muuqata inuu dib u soo laabanayo oo malay maayo intaas waxa weeye waa qariidada Kenya ay doonayso inay dib u dhiga ee habda dib u dhigayso faa'iidka ay ka doonaysaa waa intaas weeye marka intaasaan in ku soo gaabinayaa waxaan jecelahay marka berito saacadahan oo kaleeto haddii rabbi yiraahdo ayaan waxaan soo gelayaa iyada oo aan intaan ka dheer oo qaladkii la galay iyo waxqabadka dawladda iyo meeshii dhibaatadu ay ka timid iyo rajada laga qabo intaas oo dhan ayaa berito haddii rabbi yiraahdo ayaan soo geli doonaa dhammaantiinana waa salaamantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa sidaa